السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. kusoo dhawaada YouTube channelkeena Somali Youth Scholars. haddii ay tahay markii kugu horreysay aad soo booqatay channelka soo dhow mar loo daya ku leenahay walaal. YouTube channelkan waa YouTube channel aan ugu talagalnay inaan ku caawino dhalinta Soomaaliyeed oo aan ugu soo gudbino sida loo xariisto deeqada waxbarashada, green card lottery iyo waxyaabaha kale oo la midka ah. insha Allah maanta mawduuc aad iyo aad muhiim ayaan ka hadli doonaa oo ku saabsan green card lottery-ga gaar ahaan waliba dhanka sawirka. xaqiiqatan markii aan ka hadlayno dhanka sawirada green card lottery-ga sawirka waa shay aad iyo aad muhiim ah. haddaanan haysanin sawirka loogu talagalo oo ku munaasabka ahay waqtiga la gaaro xariistaanka barnaamijkani haddaanan haysanin waxba kuma taray xariistaankaas meel ibraayaad xareynaysa si aad u gaartid hadafkaaga iyo hamiga aad ka leedahay barnaamijkani waxyaabaha waxaa laga baahan yahay oo ka caawinaya ku guuleysiga barnaamijkani inaad diyaarsid oo ay ka mid tahay sawirka. laba shay ay jirto, laba wado oo aad sawirkani ku diyaarsan kartid. mid waa inaad telefoonkaaga sawir adiga iskaga qaadid oo aad telefoonkaaga aad ku edit gareystid oo aad sidaas ku xariistid. mise ma ahan inaad lacag baxsatid oo aad dad u tagtid oo arrintan ku shaqeysto meel photography aad tagtid oo lacag baxsatid oo sawirka sidaas ay kugu soo qabeen ay ku siiyaan. labadaas wada ayaa jirto. markii aan dhaho midda lacagta aad baxsanaysid iyo midda telefoonka aad ku qaadaysid way kala duwan yihiin. mid telefoon ayaa ku qaaday, midna camera weyn ayaa lagu qaaday. waxaana qaaday dad hawshan ku howl leh oo takhasus u leh. mid waxaa ogaataa sawir telefoon lagu qaaday iyo sawir lagu qaaday camera inaysan marnaba isku quality isku waxtar aysan ahayn. mar walba waxaa sareynaya oo revolution sareynaya kan lagu qaaday camerada weyn. marka micnaheeda maahan haddaad telefoon sawir ku qaaday inuu eber yahay. eber maahan. sanadkii hore sawir ayaa jiray qof walaal aan ka qaaday telefoonkay ugu qaaday, isla telefoonkay aan ku dhidgareeyay, isla markaasna yarkaasi oo ugu soo baxay green card lottery. isla wadadaas aan maray insha Allah maanta video-gan idinku tusi doonaa. insha Allah bilowda dhamaanta isla arki doonaa. ka soo qaad sawir ayaan soo qaaday. sawirkan telefoonkay ku qaaday. qof waaye telefoonkay ayaa ugu qaaday 2 saac ka hor. then sawirka waa kan. waxa isla eegi doonaa sawirkani sida uu sameeyay doono iyo sida uu control doono. insha Allah wadada maray ina ila martiin ay rajeynay. marka koowaad waxa boqonaysaa website kani waxaa la dhahaa egreencardphoto.com. insha Allah linkiga qaybta hoose soo dhigi doonaa. waa isla fiirin doontiin. markii linkigan aragtid gal wadada mari doona marka website kana booqatid mobilka waa ka gali kartaa, computer desk waa ka gali kartaa. computer desk ida si fiican. then website markaa gashid waxaad ku dhufan doontaa qaybtan upload picture ay ku qoran tahay. upload picture markaa ku dhufatid waxaad sii gali doontaa meesha uu ku yaalo sawirkaaga. then sawirkii aad soo qaadanay aa u baahnay in aad edit gareyno oo aan telefoonka ku qaadnay waa soo open ee dhahday. sawirkii website-ka ku dhex keeni doonaa. then sawirka website-ka ayuu na keenay. website-kana marka wadada maris asaga ku kala tusay adigoona is wareernin ninkan hadda sawirkan tusaalahan meeshan uu ku sii siduu yahay. calaamadahan cagaarka waxa loo baahan yahay the edge of the chain and at the top of the head must be inside the green rectangles. marka bal isla fiirino madaxaaga meesha ugu sareyso iyo garkaaga meesha ugu hooseyso ay loo baahan yahay. calaamada madaxaaga wax yar kasaan ugu koray problem lahan. waxaa uu loo baahan garkaaga iyo madaxa meesha ugu koreyso inay calaamadan u dhaxeyso. then waa sameeyay oo waa sidaan. then continue ayaa leedahay. tusaale ahaan uu ku soo bandhigaa marka adigoo sawirkaaga oo lagu dhajiyay green card lottery. tusaalahan sidaan uu soo muuqan doono ay ku leeyahay. micnaheedu waxa uu ku diyaarsan sawirka soo dejiso. then waxa leedahay download. waa soo download gareysanaysaa. then sawirku inoo soo download gareysmay. then sawirkii siyaabihii loogu baahnay ma limit waa fiirinaysaa oo ka mid tahay inuu yahay 600 ama 600 inuusan ka badnaanin 240 oo bahalkiisaskiisa
intaas inuu yahay Apple ay toolskan inta ugu miisan waa intaas. Then image size-kiisa waxaa waaye 600 times 600 pixels inuusan ka badnaanin 200 photo waxaa waaye anigana waxuu noo yahay 26 KB. marka sawirkan sid loo baahanayo oo saxda ah wuu inooni, laakiin inta ku daanin waxaa jira website kale oo aan idin tus doono. website-kaas sidoo kale isla eegayna. website-kaani waxaa la asagana sidoo kaleeto greencardphotocheck.com asana linkiga qaybta soo dhigi doona. sawirka markaa soo diyaarsid inta imaanaysa, then sawirka aad soo controlshay oo aad soo samaystay website-kana keenaysa upload and check your image for free. meeshan ku dhufo ee sawirkii aad soo samaysay geli. okay, sawirkii waa soo gelinay, upload ayaan ku dhahnay. then wuxuu ku sheegayaa marka check 1 of 4. let's have a look of technical stuff. then wuxuu ku sheegay yani intaan wax qaldan haduu ku jir lahayd calaamad guduud ku soo saar lahayd, laakiin tigtig uu noo wada saaro macnaheedu ay tahay wixii dhan waa wada sax. mesela meeshan the photo must have minimum size of 600 times 600 pixels. the photo file must not exceed a file size of 240. inuusan size-ka file-ka sawirka inuusan ka weynaanin 240. anagana wuxuu noo ahay 26 600 times 600 pixels uu inoo yahay. file-ka wuxuu waayay JPEG file uu inoo yahay sax. dhabarkana black or white uu inoo yahay. then intaan uu inoo saxan yahay. continue dheh. su'aasha ku weydiinay jawaab. wuxuu ku dhahay qofkan sawirka ka muuqda yani calaamada gaduudan indhihiisa miye yani ay muujinaysaa yani ay muujinaysaa yani location yani miye ku aadanta calaamadan gaduud qofka indhihiisa way ku aadanta yani way ku aadanta. then waxa leedahay yes. then wuxuu ku dhahay su'aasha koowaad drag the green pad. wuxuu ku dhahay calaamada cagaaran soo jiid ee qofka madaxiisa qaybtan keen. okay, su'aasha labaad wuxuu ku weydiinaya is the button of the chain low located with the green button. calaamada cagaaran ma qofka gartiisa qaybta hoose miyay taabanaysaa miyay ku aadantay locationka saxda ah yes. then su'aalahana laga baahan ka jawaabtid. su'aasha koowaad waxay ay tahay yani qofkan sawir ka muuqdo yani wax koofiyad iyo waxyaabahaas madaxa ku xirta uu wataa marka laga rabo yani xagga diimeedka dadka diinta yani dumarka xijaaban oo kale marka laga rabo yani koofiyadii wax ma wataa qofkani maya. is the person looking directly in the camera yani qofkani sawirka kamerada miyuu si toos u fiirinaya asoona madaxiisa ruuxeenin dhinac midig fiirinaynin qofkani kamerada si toos u fiirinaya asoona madaxiisa ruuxeenin waxba ku sameynaynin. is the background of the photo naturally and light color no pattern and dark yes. yani dhabarka qofka dambe dhabarka colorkiisa dhabarka dambe backgroundka yani si wide ma yahay is the person of the photo is fox. qofka sawirka yani oo photodan ka muuqdo fox ma yani ma muuqda wajigiisa yes. dimension is the person on the photo wearing glasses or any other object which are covering or distracting from the no. qofkan sawir ka muuqdo yani wajigiisa wax oo yani uu kiyaalo mise wax wajigiisa qarnay miyuu wataa maya ma wato. is the person's mouth closed. qofka afkiisa miyuu daboolan yahay yes wuu daboolan yahay. meeshan waxaa jirta walaal Soomaali sidoo kale sana arimaan soo dhigdhig YouTube ka hadlo ani wadada mar sidoo kale way saxanta waa mari kartaa wax problem ma lahan, laakiin waxaa jirta arin oo cilad ka jirta aan arkay oo afkiisa inuu kala furnaa yani haduu afkaaga uu kala furan yahay sawirka loo tiriya yani khalaas waay yani sawirkaas waxba ka suun ka kacay qalad waay. iska ilaal marka afkaaga inay kala furtid afkaaga isku xirno. su'aasha ku weydiinaa waxay tahay is the person's mouth closed. qofka afkiisa ma daboolan yahay yes uu daboolan yahay afkiisa uu isku daboolan yahay. are there any shadow in the picture be in the background or in the face yani wax mujira yani oo qarna yani shadow mujira wax mugdi wax qarna mujira. then waxa leedahay maya. has the picture been defaulted rotated on yani sawirkan sawir la gediye dhinacay loo kala gediye wax noocaas ma maya. have you used the same photo in early applications no.
su'aal kale waxa way su'aasha u dambaysa yani applicationada hore ma ku isticmaashay yani sawirkan sawir 6 bilood 7 bilood sanad asoo isticmaalaysa maya sawir hadda qaado then finish dheh then haddii wax qalad uu ku leeyahay sawirkan yani istalab guduud ku soo saara laakiin maadaama hadda waxaan uu sax inuu yahay your photo has passed the test sawirkaaga imtixaanka wuu ku gudbay yani waxa waaye sawirkan waa isticmaali kartaa green card lottery marka hal waxaan idin sheego processkan hadda aan maray يعني process ما أهان هو إذن تصاير process أنا مري وأن قف ولا نقول حري سنة كهورة أو صوب حواي مركها هكلا والله وين إن استعماشت إلى هنا تلصارو إن شاء الله ما أنت فيديو من أنتم نوع كان دونا عدي بحسوا علاقة بتقيب كومنتي يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.